horta maanta waxaan ka hadlaynaa degmada Baki bilicdeeda iyo qaabka macnaha loo nadiifiyo ayaaba muhiimada u tahay koobaad ee ka hadlay waxa weeyaan degmada Baki meel waxay ahaan jirtay kaymaa oo yaqlo waagu galo hawayaanku galo wax walba ay galaan maanta halka ay marayso inaad ku daawanaysaan iyo bilicda lagu sameeyay waxa weeyaan bili aadanku waxa u dhaqaaqo ee uu yacno tamartiisa u galiyo iyo maalkiisu sidaas ay qurux badnaadaan degmada Baki waxa ay degmooyinka macnaha ugu yacno halka la sheego waxa la oran jiray bilic male maanta inaad ku arkaysiin oo lagu daawanaya bilicdeeda iyo wadooyinka laga bixiyo iyo qaabka loo dhisay iyo injineerada isweydaananaya waxa halkaa jooga intaasoo injineer baa imika sidaa isku dhaafayo mid walba balankiisa dejinaya iyo cagafta waad arkaysiin waxa weeyaan ummaddu waxa ay qabsato buurtaa dalooliya haddii la yidhaha waa la daloolinayaa niyo waad arkaysiin windhihiinaa ka maraga wax la isku sheegayo maaha annagu waxaan u diyaarnahay tan iyo ta kale ee rajaynaynaba inaan yaxloog sidaa uga howlgalnaan aan isku raacsannahay degmada Baki fariin yaroo kalena waan ku darsanayaayoo adeerkay wuxuu yidhi muuse biixi u socoto xukuumadda maanta haysatee muuse biixi u madaxdaya muusow markii aanu ku dooranayna ee baad noogu timiday Baki maalintii waxaan ku nihi reerka awrka leh kolkuu reerka kale bilaa awrkii markuu meel maagada dego ninka awrka laa baxo oo dee dhiila yaryar buu dhiibtay oo anna taa ii soo dhaami dhiiliyaan kugu xidhxidhannay dee iminka bilaanteedii baan yar arkaynaa dhiiliyaan kugu xidhxidhannay adugu awrkaaga inaad ku aroorto loogu soo dhaamaan ku nihi nasiibkayagaad ogtoo waana soo bixi baan ku nilo nasiibkayagii ilaahay wuu ku soo bixiyey laakiin si aan naguma soo noqonno degmooyinka waaweyn ee caasimadaha baaramuun baad ka noqotaa kuwa eedaa kuwa dhiidaa iyo kuwa siidaa aduuniyow madaxweyne ma martid degmadan waa degmadii codka badanaad ka heshay kuma hayno saddexda socodkay ku raantuuyihi adeerkay baa ka badaayilaan kuma oran dawladii socodkay ku raantuuyi wadaadna socodku ku roonyuuyi roobkuna socodku ku roonyuuyi saddexdaa adeerkay baa yidhi waad arkaysaa birahaasi kumaan arag gobolka maxuu ahaayey Boorama waarkaa waxay ka gaadhaan muxuu ahaayey kaalintii hore ee gobolku lahaan jiray meeshan waxay ahayd gobol awdal waxa weeyaan gobolka dowladda hoosena way ku joogaan xaglaha kalena waa kuwa raacay waa solar system waa kiyaanay waxa weeyaan dhowr meelood qofka bukaan ku arkay dariiqada ku hoostaagay markana waad arkaysaa maanta waa adiga arkaya waxa weeyaan boqol iyo siyaada xabaad ku taagan maanta oo dariiqyada raacsan waa wax ilaahay loogu shukriyo waxa weeye Somaliland maanta ninkii u dhashay baa kursiga ku fadhiya oo haayay degmooyinka ninkii u dhashay baa kursiga ku fadhiya degmo kasta iyo gobol kastaana wuxuu helaa xaqiisa inaka u dhashay marka uu kursiga fadhiisto inaka u dhashay kursiga marka uu fadhiisto helaa waxaan ku ammaanayaa jamhuuriyadda Somaliland waxaan ku ammaanayaa xildhibaanada iyo xoghayaha fulinta ee degmada Baki waxaan ku ammaanayaa dadka wadooyinka la baneeyay ay guryaha ka jiidhay ee hambaliyeeyay ee aanan xasuusan gurigoogii dubay iyo suuligoogii la kaga hadalay xafladii qiimaha lahayd ee wasiirku waday ee aan sheegnay inaan muxuu ahaayay wadadaasi marka ay noo soo dhamaato iyo haddii aan noo soo dhamaanba inaan xukuumadda jirto dooranayno maanta waxaana ku rajoonaynaa xasuustaasi markii ay sanadka timid iyo xogayaha da'da yar ee aqoonta u leh
degmooyinkiisa ama dhulkiisa intaasi markay iskaashatay bilicdii Baki iyo hadalqaadkeygii iyo magaalo madaxnimadeedii way soo noqonayaan meeshan dastuurka Somaliland magaalo madaxdii Baki ma wareejin baarlamaankuna ma inagama wareejin marka magaalo madaxdii madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa magaalo madaxdii gobolka Awdal ee Baki aad ugu timiday dalka hor adoo joogana ahayd meesheedii inaad keento maadaama wadadii u ballan qaaday midda kalena madaxweyne ballanqaadkii hadalkan ka samaysay horta siyaasigu ballanqaad uu sameeyaa laakiin ma fuliyo madaxweynihii u horreeyay ballanqaadkii uu sameeyay fuliyay ayaa tahay taas oo la maqnayd in muddadii badnayd ee dalka haysatay laakiin inta dambe waad xasuusato adiga laakiin nama anfacayso buuraley baan nahay dooxley wadda cad oo noo samaysaa laakiin waddada inaad laami nooga dhigto maanta dawladdu way karaysaa annaguna waan ku darsanay lacagtayadii diyaar baan una jeebkan ku haynaa arrinkaas inaad laami ka dhigto sidaad u bilowday ayaanu kaa codsanaynaa madaxweynayaal dowladda degmooyinka hadday waaweyn iyo hadday yaryar cidda soo saarta waa madaxda dalka ka talisa marka aad degmada hadal qaadeen iyaduna way hadal qaado wata shaqaynaysa intii aad ka aamusanaydeen iyana way aamuseen war Baki mayna hadlayn baa loo jiray maanta waad ka hadliseen hadalka aad ka hadliseen in shaqada ka rumaysan bal loo baahan yahay insha Allah anaguna waan idinku garab taagnaa waan barbar joognaa diiwaangelintii fariinta ay noo keenayso degmada Baki diyaar bay u tahay inay diiwaangelinta si dhab ah uga qayb gasho ciddii bilaakaraya ciday ka halowdayna imika diyaar ba u tahay wayna dhararsadeen degdeg in lagu keentaan waa diyaar baan u nahay halkan waxaan uga mahadnaqaynaa xogayaa dawladda hoose wadada yar waa hawsha qabtay aad arkaysaa madaxda ka sarreysa ee la shaqaynaysaana hadduuna gacan ka haysan dee lamay shaqayseen laakiin magacan hadda ugu horeysa waxa iska leh xogayaha dawladda hoose ee da'da yar ee dawladdu soo magacawday si qurux badan waxa la leeyahay dhinac walba ugu jihaysteen iyo koo wata system suuqadii dhinac walba loo helay si qurux badan day ku baxay waxaad arkaysaa jagooyinkan garan lahayn meeshii jagaayay meeshii jiray saaka nin walba jagadiisii uu si labada ugu fadhiyo jidkiina afarta qaarkoodna ka maray tii saddex jid lahayd tii laba jid lahayd iyo tii hal jid lahayd waxaan ugu mahadnaq iska leh bilicda iyo maxaa magaceega iyo martabadeeda iyo wanaaggeega waxaan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda maanta joogta ayaan ugu mahadnaqaynaa يا أما حكاية أما ماذا حكاينا له أما ما حكاية له أما كتوبية له أما كتوبية كتير يعني ما هذا قينارت أصلا ما هذا إياه هيبقى إسكالي ما هذا كوبا إياه هيبقى إسكالي طلبات ما واحد إسكالي حكاينا هي من الحكاية كيو كتوبية هي كتوبية حكاية ما تجوجا يا اللي أنا فكرة كينين ما تاي ودان يا فكرة يعني